Guddoomiyaha Guddiga Qaadashada Macallimiinta ee Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay xilliga ay wasaaradda shaacinayso natiijada imtixaanka laga qaaday macallimiinta. Waxaana uu tilmaamay in imtixaanka ay wasaaradda ka qaaday macallimiinta uu soo maray marxalado kala duwan si loo hagaajiyo tayada waxbarashada ee wax ka dhiga macallimiinta iskuulaadka iyo jaamacadaha dalka. ka wasaarad ahaan waxaan jecelnahay usbuuca soo socda haddii Ilaahay yiraahdo inaan shaacino maadaama ay wixii hadda soo gabagabeen marka la shaaciyo waxaan rabnaa haddii Ilaahay raali ka noqdo in uu ku xigo waxa ku xigi doono interview ama maaragtay wareysi afka ah macallimiintii ku soo gudubtay state walba ama maamul goboleed walba macallimiinta ugu sareysay in laga qaado interview imtixaan afka ah in laga qaado oo waji ka waji ah imtixaanka ugu weyn oo lagu kala saarayo waa horta imtixaanka maadada ah oo ay galeen imtixaanka qoraalka ah kadibna waxaa laga qaadi doonaa interviewgaas wuxuu noqon doonaa waji ka waji waxaan lagu qaadayaa xarumaha maamul goboleedyada lagu qaadi doonaa kadib tababar ay qaadan doonaan macallimiintan tababar oo intensive ah oo ah full time oo laga yaabo inuu subaxdii 7 ama 8 bilood ilaa iyo galabtii 5 tababar oo intensive ay qaadan doonaan kadib ayaa waxaa la geyn doonaa iskuuladoodii lagu kala qori doonaa 27 Febraayo ee sanadkan 2023 Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa daahfuray imtixaanka macallimiinta oo lagu qabtay 11 magaalo oo ku yaala gudaha dalka waxaana ka qayb galay 8,000 oo macallimiin. Faadimo Daahir Cabdo, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.